arrinkii aad ugu farxanay shidaal qodista Soomaaliya ee maraakiibtii badda imaaday shidaal qodista bilaaway 3 bilood ka xitaa dawladda ay noo soo report gareysay Turkiga laftirkiisa uu noo sheegay shidaalkaas qodistiisa inay bilaawato war hadda muddo bila ah laga soo wareegay maxaa aabdeeda oo ahayna ummadda Soomaaliyeed su'aashiis inay isweydiisaan muhiim sanadka 2024 waxyaabaha aadka loogu farxay ummadda Soomaaliyeed yada diilo iyo waliba dhiirgelin dal jaceelka waxyaabaha abuuray sanadka la soo dhaafay ani waxay aad sanadka la soo dhaafay hadii hal shay aan ku xusi karo ummadda Soomaaliyeed oo aan ka dareemay gaaraan dhalinyarada ugu xiran oo aan ka dareemay dalkeena inaan wada jecelnahay aad difaacanayno iyo kheyraadka baddeena ku jiro markaan sharaxnay oo dhalinyarada inta badan runaantii dal jaceyl iyo sidoo kale qadiyada dawladda iyo xitaa waxa gaarnay matqaana sanadka la soo dhaafay dawladdeena inaan gadaasheeda wada safano oromadii ay iyo kuwa oromada raacsan jaajuusiinta aan la dagaalano dadka xasuus hal mar wixii oo dhan iswada bedeleen wax aabdeeda dawladda nama siiso markabka meesha joogay dawladda Turkiga waxay noo sheegtay 24 saac kasto dawladdeena gaar ahaan wasaaradda batroolka macdanta kheyraadka bad iyo waxa aabdeeda la siiyaa wixii soo kordhay loo sheegaa every 24 hours xalay aabdeeda la sii maalinka ka horreysay aabdeeda la sii isbuucii la soo dhaafo dhan bilihii la soo dhaafo dhan tan iyo markabkii Orok Race loo yaqaanay markabkaas quruxda badan markuu baddeena soo istaagay uu dul istaagay meelaha shidaalka uu ka buuxo dawladdeena aabdeeda helaysa oo maalin la ah annaga ummadda Soomaaliyeed waxaan nahay dad tilmaam badan dawladda ma weydino tusaalooyin ay soo qaadana maanta Kenya shidaala laga helay Kenya waa ogtiin baddeena west laftirkeeda laakiin qayb ayaga baddooda raacsan oo shidaal laga helaa jiro isla markii saxaafadda Kenya waxay la shirtay wasiirka batroolka iyo macdanta iyo Kenyaanka waagaas Nairobi way la shireen waxay dhaheen maadaama Kenya gawaarida baabuurta aad loo isticmaalo bajaajyada matatu wax loo yaqaan waxaas iyo maraakiibta marka saxaafadda waxay tiri aabdeedna siiya oo maalin la ah marka dawladda Kenya waxa lagu qasbay geesta dhagaha fura dhalinyaro dawladda Kenya waxa Kenya waa dal musuqmaasuq saas u keenay madaxweynahooda hadda loo doortay musuqmaasuqa kaalinta labaad inuu ka galay saas ay tahay saxaafadii iyo shacabkii waxay ku qasbeen dawladda inay aabdeed siiso ummadaas Kenyaanka ah oo maalin la ah shidaalkii dal hebel heshiis la galnay intaas hadda la soo saaray intaana hadda la process gareynaya shidaalka hoos u dhacay inta ka dhacday aabdeeda la siiyaa Brazil saas oo kala ka dhacday marka shidaal loo helay dawladdii waxay telefishinka waxay bilaabeen barnaamij maalin la ah oo ay uga hadlayaan kheyraadka iyo wixii soo kordhay iyo shidaalka iyo macnaha muhiimadda iyo waxaas dhageystiya Norway markii ayadana shidaal dalka Norway Europe shidaal qeyrul caadi ah laga helay 1960 isla markii ayagana aabdeeda ummadooda siiyeen oo way soo hor istaageen maalinle dadka loo sharxayaa kheyraadka anaga marka su'aash meesha isweydiinta mudana waxay tahay dhalinyarooy is dhigeysano markii markabkan Turkiga uu yimid dadka idin soo hor istaagay ee sharxayay oo waxaan iyo muhiimadda ay leedahay kheyraadka badda iyo ummadda Soomaaliyeed shacabka TikTok isticmaal sida anigoo kale ahayd wasiirka dhan batroolka iyo macdanta kheyraadka badda iyo wixii la rabay inuu furo laan ama qayb kamid ah war saxaafadeed soo saarto oo kheyraadka iyo quruxda iyo waxaas dadka uga sheekayso ship way dawladdii waa iska aamusan tahay aniga shakhsiyan dawladda lacag shidaalka wixii soo baxay iyo kheyraad lacagtan socotay waxaa xabad nagama soo gaarayaan idinkoo dhalinyarada iyo aniga dawladda waxaa hubaal ah Turkiga markabkiisa habeenkii uu baddeena ku bariyo kiri ahaan way lacageed dawladda siyaana jirto hadaadan ogeyn saas marka meeshaan transparency-ga nugu yar saxaafad Soomaaliyeed oo wanaagsan oo sida ku Kenyaanka oo kale ah oo waceeso wasaaradda batroolka iyo kheyraadka badda iyo saxaafad Soomaaliyeed oo xor ah oo nadiif ah oo dawladdeena daba dhiganayso oo waxaan yani ka keenayso si wax jiraan aabdeedna si ma jirto waa iska aamusin wixii loo laabo ee iska qaataan taasne waa waadax waa boqolkiiba baranka taala marka aabdeedki shidaalka maxaa la soo qoday maxaa soo kordhay alaabtii loo qaaday Turkiga ee lagu soo process gareynayay ma ani waxa la yaabay shidaal Soomaaliya waa laga soo saaray boqolkiiba waa hubaal bilaa hadda lagu jooga inta marka meesha joogo war processna la sameeyay war filterna la sameeyay
turkiga aabdheedaysiyaan dadkooda haye intaana soo helay maxaa anaga aabdheed u la'naa horta waa yaabe dowladdeena waa idin taageernay waa idin garab galnay xitaa afkii idinka afkiina juqda galay anaga banaanka keen anaga idin hadalnay khayraadka badda iyo quruxda iyo wallahi waa amaanay waxaa idin dhaafeerayaa bishii kasoo bilaabada markii Abiy Ahmed MOU la saxiixay ilaa sanadka 2024 dhamaadkiisa dadkii hadlay ee dowladda aad u taageera kamid ahaanay dowladii waa la wada jeclaaday oo dhalinyaradii heer waxay gaareen xogayada diila ee gasho xitaa buufka u yaraado buufka loo carinayo saxaraha la maray wuu yaraaday maxaa yeelay dhalinyaradii niida u dhisnay dowladnimadii wixii ka shaqay marka dowladda ma aragtay adiga aan leenahay hala taageero hala kiciyo hala yani wanaag iyo qayrka iyo ma nafahmooso baba nafahmoosaba marka waa lagu qasban yahay qofka dujiifka ka kici waayo oo hurdadu u dheeraysto bii qaboo madax loogu shubaa dowladdeena marka marna waa kicinaynaa oo baraarujinaynaa hadee kici weysanay waxa waaye dhagaxa tuureynaa marka walaalayaalow abdheed iga gaarsiiye muuqaalkan wasaaradda macdanta batroolka khayraadka badda iyo wixii la dhahaba magacooda maqaanani hana abdheed gareyso war Eric Ross war markabkii muxuu soo saaray meeqa barmiila la soo saaray meeqa lacaga laga helay waxaas oo dhan waa qasab inaad noo sheegtaan negotiation ma aha